xabad joojintan degdega ee TPLF ay ku dhawaaqday iyo xilliga ay ku soo aadisay waxaa loo fasiran karaa saddex arrimood mid in dowladda federaalka Itoobiya ay ka aamusto xabad joojinta ay TPLF ku dhawaaqday ee halka dhinaca kalena Birhanu Jula uu sheego in ciidamadoodu ay burburiyeen fadhiisimihii TPLF sidoo kalena ay sii wadi doonaan gulufka colaadeed ee ka dhanka TPLF. kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socota ibal walba joogtaan iyo suul baad maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa kamid ah TPLF oo ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca iyadoo ciidamada militariga dalka Itoobiyana ay sheegeen inay gabi ahaanba jabiyeen ciidamadii Tigreega ayna ku siisiqayaan caasimada deegaanka Tigreega ee Maqale waxaana la xaqiijiyay in ciidamada militariga dalka Itoobiya ay ku dhow yihiin qabsashada caasimadaasi iyadoo taliyaha ciidamada militariga ee dalka Itoobiya uu sheegay in gabi ahaanba ay cagta mariyeen ciidamadii Tigreega maalmihii la soo dhaafay ciidamada Tigreegu waxay sheegahayeen guulo waaweyn inay ka gaadheen dagaaladii ay la galeen ciidamada militariga dalka Itoobiya waxayna soo bandhigayeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya oo ay gacanta ku dhigeen balse ila wareedyo ayaa sheegahaya in dagaaladii ugu dambeeyay gabi ahaanba Tigreegu aysan wax faa'iido ka dheefin oo dagaaladaas lagu jabiyay dhinaca kale dowladda federaalka Itoobiya waa ay diiday xabad joojinta halka dhinaca ee TPLF oo ay ku dhawaaqday waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa wada hadalladii dalka Djibouti uga socday TPLF iyo dowladda federaalka xogaha xasaasi ayaan idinka haynaa oo hordhacoon ka helayna halkaasi dhinaca kale madaxda ugu sareysa dowlad deegaanka Soomaalida diyaarad ay saarnaayeen oo military ayaa maanta jahadi ka dhuntay iyadoo madaxdu ay booqdeen xuduudda u dhaxaysa gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed iyo gobolka Afdheer dagaal qaraar ayaa ka socda degmada Fiilto oo ka tirsan gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida dhibasho iyo dhaawac ayaa halkaasi ka dhacay xog faahfaahsan ayaan idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa warkeena kaga bogonaysaan waxaana istuuray igula sugan saaxiibkay Faahiyo oo isha ku haya xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya daacado Faahiyo soo dhow aad baad u mahadsan tahay Santiago haddii aynu ku bilowno ciidamada militariga dalka Itoobiya waxay sheegeen in ay jabiyeen ciidamada TPLFna waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca dowladda federaalkana wax wara kama soo bixin dhinaca kale waxaa la sheegayaa ciidamada militarigu inay ku sii wajahayeen caasimada deegaanka Tigreega ee Maqale maalmihii ugu dambeeyeen Tigreegu waxay soo bandhigayeen guulo waaweyn oo ay sheegayeen inay ka gaadheen dagaalada ay la galeen ciidamada militariga kuwa Faano kuwa New Police dowlad deegaanka Axmarada kuwa Canfarta oo isku dhinaca waxaa dhinaca kale iyadana dagaal xooggan kula jiray ciidamo ka socda dhinaca Eritrea bal adoo noo soo koobaya xagee wax marayaan Santiago aad baad u mahadsan tahay saaxiibadeena hawada nagala socdana waan salaamaynaa xaaladda dalka Itoobiya maalinta ka dambaysa waxay galaysaa mugdi iyo jahawareer la xidhiidha colaadda sii xoogaysanaysa ee ka socota gudaha dalkaasi waxaan marka hore ku eegi doonaa bal xaaladihii ugu dambeeyay oo aan ognahay in dagaal ay ka socdeen deegaanada Gashane Sakota Waqoohumara Raaya Walqayd gobolka Wallo deegaanka Canfarta oo Birhaaran la keenay kumanaan ka tirsan ciidanka militariga dalka Eritrea magaalooyinka Shireere Shiro Ageero iyo sidoo kale deegaanka Adibayo oo iyadana dagaalo xoogan ay ka socdeen TPLF oo soo bandhigaysay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dalka Eritrea oo uu hogaaminayo generaal aad looga yaqaano guud ahaanba dalka Itoobiya Eritrea intaasi marka laga yimaado dagaaladii ugu dambeeyay waxay ka dhaceen xalay ilaa maanta dagaaladaasi oo duqeymo ay daba socdeen magaalooyinka Shireero iyo Shire waxaa la sheegaa gaasi in labada dhinac ay aad ugu burbureen khasaare xoogan uu soo kala gaadhay shacabka deegaanka aagaasi ku dhaqan TPLF waxaa la sheegay jab aad u xoogan oo aysan ka soo waaqsan doonin in halkaasi uu ku soo gaadhay dhinaca kalena saraakiisha ugu sarreysay ciidamadooda ee hoggaanka u haysay in ay bataatanba ku burbureen dhinaca kale waxaa la sheegayaa in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dalka Eritrea iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya halkaasi lagu laayay TPLF guul ayay sheegatay balse guushaasi warbixin hoose oo helay waxaana loo sheegayaa in dagaalkaasi ay ku baaba'een dhinaca kalena ay ku burbureen Santiago furmihii gobolka Wallo TPLF bataatanba waa ay banaysay magaalada Qobe oo ugu dambeysayna maanta waxay ka gurteen qalabkoodii iyo sidoo kale saadkii u yaalay iyadoo ciidamada militariga dalka Itoobiya oo maanta xalfad ku dhigtay magaalada Waldiya ay ugu dabaaldegayeen sanadka cusub ee dalka Itoobiya 2015 la sheegay in maanta ay qalabkoodii iyo sidoo kale taangiyadoodii qaateen ayna ku sii jeedaan deegaanka Goobiye oo ay shalay la wareegeen dhinaca kalena ay uga sii gudbi doonaan magaalada Qobo waxaana
laga cabsi qabaa in ciidamadaasi militariga Ethiopia ay horay ugu sii dhaqaaqaan ilaa iyo magaalada Alamata. sidoo kale ciidankii kumanaanka ahaa ee iskugu jiray taliska 29aad 49aad 72 iyo sidoo kale 51aad ee ciidanka militariga Eritrea ee laga soo daadiyay deegaanka Birhale iyo Bade ee gobolka Canfarta waxaa la sheegayaa in shacabku ay si weyn u hor istaageen ciidankaasi inay wax dagaal qaadaan dhinaca kalena ciidamadii TPLF aagaasi ku sugnaa ay dib uga gurteen furimaha dagaalka ciidamada Eritrea ilaa iyo hadda aysan wax dagaal gelin oo aysan dhaqdhaqaaq samayn dhinaca markaan u dhaqaaqno Walqayt iyo Humeerana waxaa la sheegayaa in TPLF oo markii hore isku dayday inay qabsato garoonka diyaaradaha ee magaalada Humeera in ay bataatan ba ku guul dareysatay kadib markii kumanaan ka tirsan ciidanka militariga dalka Ethiopia oo garabsanaya kuwa dalka Eritrea ay halkaasi dagaal xoogan ku soo qaadeen dhinaca kalena la sheegay in diyaaradaha waxa weeye militariga helicopterta kuwa qumaatiga u kacay miiga iyo sidoo kale dronka ay dagaalkaasi ka qayb qaateen Santiago waxaa intaasi raacsan oo warbixinada aan helayno daba socdo in diyaarado Ethiopia ay ka soo gadatay dalka Iran oo laga soo dejiyay magaalada Asmara ee caasimada wadanka Eritrea in ay dagaalkan wax weyn ku soo kordhiyeen TPLF-na ay jab xoogan u geysteen dhinaca kalena furimihii ay ku jireen ay ka bixiyeen warbixino kale oo helaynana waxay sheegayaan booqashadii ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee dalka Algeria ee galbeedka qaaradan Afrika in qalab iyo saad military oo aad u xoogan uu ka soo helay dhinaca kalena dagaalkan ay wax weyn ku soo kordhiyeen iyadoo maalmihii u dambeeyay la sheegayay in TPLF ay heshay hub casri oo ay ka mid yihiin gantaalka loo yaqaano FIM 91 Stinger missiles kaas oo inta badan gumaado ama burburiyo diyaaradaha waaweyn helikobtarada miiga iyo sidoo kale walxaha waxa weeye isha military oo dhan Santiago dawladda Ethiopia waxay sheegtay sidii uu sheegayba Marshal Birhanu Jula taliska guud ee ciidanka militariga Ethiopia warbaahinta la hadlay asagoo ka hadlayay xafladda sanad guurada in ay burburiyeen guud ahaanba ciidankii TPLF ay 7 bilood u dambeysay diyaarinaysay dhinaca kalena Ethiopia badbaadadeeda iyo jiritaankeeda ay ku jirta gacanta ciidanka militariga Ethiopia ayna bataatanba soo afjareen furimihii TPLF ee dagaalka kaga jirtay dhinaca kalena ay guul weyn ka gaadheen isagoo sheegay cid kasta oo isku daydo in Ethiopia ay khalkhal geliso in ay cashir u dhigi doonaan dhinaca kalena waxa weeye ay tilaabo rasmi ah ka qaadi doonaan isla xaaladda dalka Ethiopia waxa la sheegayaa in ciidamada militariga Ethiopia sirdoonka dalkaasi federal booliska iyo maleeshiyaadka ciidamada liyu booliska deegaanka Amxaarada inay gacanta ku dhigeen koox argagixiso ah waa sida hadalka loo dhigay oo Kristaan ah kuwaasoo lagu tababarayay kaniisadaha ku yaala deegaanka Amxaarada iskuguna jiray dhalinyaro iyo sidoo kale wadaadada diimaha ciidamada militariga Ethiopia waxay soo bandhigeen ciidankaasi waxay sheegeen in la tababarayay dhinaca kalena waxa weeye in ay baadhitaan ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen qaybaha kale ee ciidankaasi ku saabsan marka laga yimaado guud ahaan gobolka Tigreega iyo Amxaarada dagaalo goosgoos ayaa ka dhacay gobolka Shawa Wallaga iyo sidoo kale gobolka Ambo Jima iyo deegaano kale oo ku xeeran magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada militariga oo garabsanaya liyu booliska deegaanka Oromia iyo sidoo kale jabhadda xoreynta Ola maanta wax warbixina kama soo bixin dhinaceeda sidoo kalena waxa weeye guul ma aysan sheeganin laakiin waxay soo bandhigayeen maalmihii u dambeysay warshado iyo sidoo kale goobo muhiim ah iyo kaalimo shidaal oo ay la wareegeen inkasta oo guud ahaan dalka Ethiopia xaalad shilaad la'aaneed iyo sicir bar aad u sareeyo uu ka kacay noloshuna xilligani ay khatar ku jirto waxgaag maxaa ka jira sheegashada Tigreego ay sheegayaan xabad joojinta halka dhinaca ee ayagu ay ku dhawaaqeen dawladda federaalka maxay ka tiri warka ka soo baxay Tigreega Santiago aad baad u mahadsan tahay Tigreegu maanta waxay soo saareen war saxaafadeed sidan u dhignaa waxay dhaheen dadka Etoobiyaanka ee ku sugan gudaha iyo dibadda dalku waxay u dabaaldegayaan curashada sanadka cusub waa rabitaanka xukuumadda Tigreega inay arkaan guud ahaan shacabka Ethiopia gaar ahaan shacabka Tigreega in aanay maqal dhawaaqa rasaasta xanibaadda adeegyada muhiimka ah gargaarka bini'aadantinimo iyo sidoo kale dhibaatooyinka shacabka Tigreega loo geysto si arrimahaasi loo gaadho dawladda Tigreegu waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato geedi socodka nabadeed ee garwadeenka uu ka yahay midowga Afrika
intaas waxaa dheer waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno codsiga ah in aan si degdega u joojinno xabadda ee labada dhinac ee aan ku heshiino sidoo kalena la abuuro jawin wadahadal iyo sidoo kale jawi nabadeed. Runtii xukuumadda Tigreegu ayaa marar badan ku baaqday kana shaqaysay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda ka taagan dowladda Tigreegu. Marnaba hadda iyo mar horeba waxay codsanaysay in colaadan lagu dhameeyo wadahadal xabad joojin. Arrintaas ayaa tusaale u ah in dowladda Tigreegu mar walba ay diyaar u tahay wadahadal in lagu dhameeyo colaadda ka jirta. Waxaan filaynaa hanaanka nabadeed ee AU-da ay hogaaminayso oo lagu kalsoonaan karo in uu qabsoomo. Qorshaha xalka nabadeed lagu raadinayo waxa kaliya oo qayb ka ahaan doona dhexdhexaadiyaal labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin, iyadoo goobjoogayaal caalami ah ay ka caawin doonaan dhinacyada inay dhistaan is-aaminaad labada dhinaca dhex marta, abuurtana kalsoonida geedi socodka nabadeed iyo tan taageerida iyo kormeeridda fulinta ballanqaadyada. Waxaan ku qanacsannahay in wadahadal nabadeed lagu gaari karo xal waara oo lagu joojiyo colaadda iyo xaaladda murugsan ee ka taagan guud ahaan dalka Itoobiya. Kadib joojinta dagaalka, tillaabada xigta waa inay noqoto sidii loo gaari lahaa xabad joojin iyo wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo xaliyo arrimaha salka ku haya khilaafka taagan. Dowladda Tigreegu waxay diyaarisay koox wada xaajoodkaasi ku matasha oo ay ka go'an tahay in la wada hadlo iyadoo aan dib loo dhigaynin geedi socodka wadahadallada. Kooxdan oo ay ka mid yihiin Getachew Reda iyo sidoo kale Tadaskan oo ahaa taliska guud ee ciidamada TDF-ta ama Tigreega. Curashada cusub iyo ruuxda sanadka cusub darteeda aan joojina dagaalka, fursadna aan siino nabadda si aan u bilowno wadahadal iyo sidoo kale burwaaqa joogta. Warkan ayaa ka soo baxay TPLF. Waxaan akhrinayay waa war-saxaafadeedkii ka soo baxay dhinaca magaalada Maqale iyo TPLF. War-saxaafadeedkan si kadisa ayuu ku soo baxay. Sidoo kalena waxaad moodaa TPLF inay xilligan garwaaqsatay jabka ka soo gaadhay furimaha dagaalka iyo sidoo kale isbahaysiga ay sameeyeen ciidanka militariga Ethiopia, ciidanka militariga Eritrea iyo sidoo kale gamco shisheeye oon meesha ka marnayn, hubka dowladda Iran Ethiopia ay ka soo iibsatay, booqashadii ra'iisul wasaaraha waqooyiga Ethiopia Abiy Ahmed oon dagaalkan saamayntii hore uu ku lahaa aan ku dhex yeelanin oo sidoo kalena daaha gadaashiisa ee ka maamulahaya. Waxaadna moodaa guushan inuu horseeday Isaias Afwerkiga xukuma dalka Eritrea oo Abiy Ahmed uu si weyn uga caawiyey dagaalkan. Waxaa kaloo la sheegayaa in TPLF doorkan waxyaalaha sida gaarka u jabiyey ama dhibaatooyinka ku noqday in ay ka mid tahay in dadkii waxa weeye taageersanaa in ay waxa weeye ka quusteen TPLF taageerada ay u hayeen iyo sidoo kale garab istaag ay u muujinayeen. Waxaa kaloo iyadana la sheegayaa in ciidamada Tigreegu saad la'aan, shidaal la'aan iyo sidoo kale qalabka militariga oo ku yaraa darteed in ay sabab u noqotay in furimaha dagaalka lagaga guuleysto ninka la yiraahdo Santiago. Isku soo duuduba warkan ka soo baxay xilligan Tigreega markaad akhriso qodobadiisa iyo erayada ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa burwaaqo. Xisbiga Abiy Ahmed uu hogaaminayo magaciisa burwaaqo ah, marka in burwaaqo iyo nabadgelyo iyo wadajir lagu noolaado. Qodobka kale ah waxaan ku kalsoonnahay midowga Afrika oo markii horeba TPLF ay si gaar u eedeyn jirtay, dhinaca kalena ay cambaarayn jirtay oo sheegi jirtay inaysan daacad ka ahayn wada hadallo lala galo dowladda federaalka Ethiopia, dhinaca kalena aysan awoodin in labada dhinac ay dhexdhexaadiyaan. Codsigan ay u dirayso beesha caalamka iyo sida ay uga walaacsan yihiin cunaqabataynta iyo dhibaatada haysato gobolka Tigreega iyo xabad joojinta halka dhinac ay ku dhawaaqeen, iyadoo maalmihii u dambeeyay ay soo baxayeen in kulan qarsoodi ah uu ka socday dalka Djibouti. Waxaad moodaa TPLF in ay garwaaqsatay jabka ka soo gaadhay furimaha dagaalka, dhinaca kalena ay ku fashilantay bataatanba dagaalka ay kula jirtay dowladda federaalka Ethiopia. Dhinaca Ethiopia markaan u leexano ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo sax oo ka soo baxay oo ku aadan xabad joojintan TPLF ee ku dhawaaqday iyo sidoo kale codsiga ay u dirtay qaramada midoobay, midowga Afrika iyo sidoo kale arrintan ay ku sheegtay inay doonayaan inay higsanayaan burwaaqo iyo yadadilo nabadeed oo ay ku gaadhaan shacabka Tigreega. Bal taliyaha guud ee ciidanka Ethiopia oo warkeena hore ku soo sheegnay maanta wuxuu soo jeedinayay hanjabaado ay ka mid yihiin in ay burburiyeen, dhinaca kalena ay cagta mariyeen furimihii dagaalka iyo sidoo kale goobihii ay weerarka ku soo qaadeen falagada TPLF. Isku soo duuduubo Ethiopiana warka ma soo bixin, TPLFna xabad joojin hal dhinaca oo weliba erayada ama terminology-ga loo isticmaalay uu aad daciif u yahay ayaa ka soo baxay Santiago. وحقاك dhinaca kale waxaa la sheegaya inay wada hadallo ka socdeen dalka Djibouti u dhaxeeya Tigreega iyo dowladda federaalka Ethiopia. Maxaa ka soo baxay wada hadalladii?
Santiago wadahadaladii u dhaxeeyay TPLF iyo Tigreega waxaa la sheegay in ay ka qayb galayeen laba xubnood oo dowladda federaalka Itoobiya ka socoto oo garwadeen ka ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Ridwan Hussein sidoo kalena soo maray wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale Getachew Reda iyo Tadaskan ama Saadikhan ninka ay Soomaalidu u taqaano ah Major General hogaaminaya ciidamadii loo bixiyay TDF kulankaasi waxaa la sheegay in qodobada lagaga wada hadlay inta badan markii hore la isku afgartay laakiin saddex qodob oo kamid ah la isku fahmi waayay dhinaca kalena waxa weeye TPLF codsi ay soo jeedisay in waxa weeye ay Ethiopian ku diideen ama qolada Ethiopia ka socotay ay aqbali waayeen qodobada saddexda qodob ay soo jeedisay TPLF waxaa kamid ahaa kow in xabad joojin lagu dhawaaqo mid ay caawa ayuu ku dhawaaqeena laba in ciidamada Eritreanka ay ka baxaan guud ahaan dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreega oo bartaatan ciidan Eritrean aan lagu arki karin gudaha dalka Ethiopia faragelinta shisheeye ee dalka ku dhex jirtana meesha laga saaro qodobka saddexaad oo ahaa in waxa weeye gobolka Tigreega loo furo adeegyada aasaasiga ah oo dhan iyadoo oo shuruud la'aan arintaasi ay tahay balse dowladda federaalka Itoobiya xubnihii ku matalahayay saddexda qodob waxay ka cudur daarteen kow qodobka ciidanka Eritrea oo bataatanba ay diideen ama ay beeniyeenba in ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega dhinaca kale waxay sheegeen in aysan ku kalsoonayn in adeeg aysan dowladda federaalku fulinaynin in laga fuliyo gobolka Tigreega dhinaca kalena TPLF arrimahaas ay u adeegsan doonto inay dib iska soo abaabulaan oo dagaal mar kale dowladda federaalka Itoobiya ay ku soo qaadaan marka xabad joojintana waxay ku sheegeen inay horay dhowr jeer hore ugu dhawaaqeen xabad joojin waxa weeye hal dhinaca oo dowladda federaalka ay mar walba diyaar u ahayd in xabad joojin ay ku dhawaaqdo balse dhinaca TPLF aan kalsooni buuxda laga haynin dhinaca kalena markii dowladda xabad joojin ay ku dhawaaqdo luuqadda ay u adeegsanayeen ay ahayd mid qallafsan oo dhinaca kale ka turjumaynin rabitaanka wada hadal nabadeed balse waxaad moodaa in TPLF hadda ay garwaaqsatay in iyadu ay xabad joojinta la hormarto saddexda qodob ayaa la isku mari waayay laakiin wada hadalkii oo maanta niska hore lagu kala kacay dib ayaa la iskugu noqday niskii dambe kadib markay TPLF sheegtay in ay xabad joojin rasmi ah iyadu ay ku dhawaaqayso labada qodob ee laakiin miiska saaran ee ciidanka Eritreanka in wadalkan laga saaro iyo sidoo kale in adeega aasaasiga dowladda federaalka aysan fulinayn gobolka Tigreega laga fuliyo waa labada qodob ee masiiriga ee la isku mari laayahay ee Santiago daawadayaal aad baad mahadsantihiin wararkeena dambe wixii ka soo kordhana ayaad kaga bogan doontaan xaaladda cakiran iyo sidoo kale wada hadallada dowladda federaalka iyo TPLF u dhaxeeya iyo sidoo kale ciidamada militariga dalka Itoobiya ee ku sii siqaya caasimada deegaanka Tigreega ee Maqale wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa bal haddii aan aadno dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiyana iyagana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne ku-xigeenka iyo hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta safar uga ambabaxay dhinaca deegaanka Afdheer iyo xadka u dhaxeeya gobolka Afdheer iyo gobolka Bakool iyadoo madaxweynaha la sheegaya ama mas'uuliyiinta sare la sheegay diyaaradii ay wateen oo ahayd diyaaradda militariga in ay hawada kula qalibantay isla markaana xaalad adag ay galeen waxaa dhinaca kale dagaal iyadana ka socda degmada Fiiltu oo ka tirsan gobolka Liibaan ee dowladda deegaanka Soomaalida dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaas laga soo sheegaya waxaan mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay daacad xaaladaha dowladda deegaanka iyo siyaasadda cakiran iyo safarka madaxweynaha ee uu ku tagay degmooyinka dhaca dhinaca xadka gobolka Bakool ee koonfur galbeed iyo sidoo kale dagaalka ka socda degmada Fiiltu gobolka Liibaan daacad mar labaad soo dhawow Santiago aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida intaynaan ku horeynin saaka barqadii hore degmada Ceel Berde dowladda deegaanka Soomaalida xadkiisa marka la soo galay inta u dhaxaysa Ceel Berde iyo magaalada Qalaafe waxaa la sheegay in dad saddex qof oo watay mooto bajaaj in qarax ay u dhigeen ururka al-shabaab halkaasi afar qof ay ku dhinteen dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen inta dhimata Allah u naxariis inta dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo dhinaca kale waxaa la sheegayaa booqashadii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida diyaaradda ay saarayeen maanta markii hawada gashay in hawadu ay ka luntay dhinaca kale GPS-kii uu u shaqayn waayay taasoo markii dambe khalkhal ku abuurtay dhammaan wafuudii socotay ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada afhayeenka baarlamaanka saraakiisha ugu sarreysa ciidamada liyu booliska iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya kuwaas oo la sheegay in ay ka degeen galabta niskii dambe ee magaalada Baarrey ama sidoo kale degmada Baarrey oo ay kula kulmeen kumanaan shacab halkan loogu soo baxay arintaasi hoggaanka nabadgelyada ka hadlay wuxuu sheegay in cabsi weyn ku abuurtay qaabka diyaaraddaasi ay uga baxday hawada iyo sidoo kale caqabadaha ay kala kulmeen marka intaas aan ku dhaafno xaaladda madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo booqashadiisa halkaasi
degmada Filtu oo ka tirsan gobolka Liibaan ee dowladdeegaanka Soomaalida waxaa la sheegayaa in dagaal xoogan oo u dhaxeeyo laba beelood oo halkaasi dego iyo sidoo kale qoomiyadda Oromada oo arrintaasi ishaafalatayn iyo gacan bidixayn ku hayso in ay dagaal xoogan ka socdo halkaasi. dhimashada hal qof ayaa loo xaqiijiyay, laba qofna waa dhaawac. welina dagaalku wuu socdaa. isbitaalka Filtuna waxaa la keenay kumanaan shacab oo dhaawac ah, halka magaalada Hawaasa loola cararay in ka badan 12 qof oo shacab ah. shakhsina la soo xiriiray oo nagala hadlay noo sheegay arrintaasna wuxuu sheegay in shacabkaasi ay la ildaran yihiin dhibaatooyin xilli abaaro iyo sidoo kale biyo la'aan halkaasi ay ka jirto. xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ilaa iyo hadda wax war arrintaas kama soo saarin, ciidamo looma dirin, shacabkuna way isku dhammaadeen oo dhiig ay halkaasi qubanaya sida la soo sheegayo. xaalad cakiran ayaana halkaasi ka taagan Santiago. isku soo duuduba xaaladda dowladdeegaanka Soomaalida maalmihii u dambeeyay waxaa ka taagnaa qas siyaasadeed kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ururka ONLF ay ku eedeysay inay xidhiir la leeyihiin ururada Al-Shabaab, Onaag Sheene iyo sidoo kale TPLF. dhinaca kalena ciidanka militariga Itoobiya ay sheegeen in xuduudda dowladdeegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya ay dagaal kaga jiraan u dhaxeeyo ciidanka militariga Itoobiya oo garabsanaya kuwa liyu booliska iyo maleeshiyad kala duwan iyo sidoo kale Al-Shabaab oo iyaduna garabsanayso dagaalyahanada ogaadeen ama ONLF. gudoomiyaha ururka ONLF arrintaasi si weyn ayuu oga hadlay. dhinaca kalena waxay sheegeen in waxa weeye arrintaasi ay walaac ku abuurayso. dhinaca xukuumadda dowladdeegaanka wax war kama aysan soo saarin. cabsi weyn baa deegaanka Soomaalida si guud oga taagan, waxaana la sheegayaa inay jirto qorshe kale oo lagu doonayo in lagu xalaalaysto, dhinaca kalena lagu baabi'iyo shacabka dowladdeegaanka Soomaalida oo sidoo kale xilligan ay cabsi weyn soo wajahday. dhinaca kalena xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalidu ay maalmihii u dambeysaba farafarayn iyo sidoo kale in colaad mar kale ay ka horto dowladdeegaanka ay isu diyaarinaysay. aad iyo aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa saaxiibka Faahiyo nala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. wararkeena xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha xaaladda dowladdeegaanka Soomaalida iyo gabi ahaanba dalka Itoobiya ee dhinacyada badan ka ololahaya. tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tagaynaa amaana Allah.